Assalaamu calaykum. Laga soo bilaabo bilowgii ibni aadamka waxaan bilownay in aan fahanno dabeecadda iyo meesha aan joogno. Baadigoobka aan ku raadinaynay hadafka nolosha, dad badan waxay qaateen diimo. Inta badan diimaha ay qaateen waxay leeyihiin kitaabo ay aaminsan yihiin inuu yahay hadalkii Ilaah, iyagoon haysan caddayn. Diinta Islaamka way ka duwan tahay dhammaantood, sababtoo ah waxay ku dhisan tahay sababo iyo caddaymo. Waxaa jira calaamado cadcad oo kitaabka Islaamku haystaan ee Qur'aanka ah inuu yahay hadalkii Ilaah. Waxaa jira xaqiiqooyin cilmi iyo taariikh ah oo ku jira Qur'aanka, kuwaas oo aan dadka garanaynin ilaa waqtiga, waxaana xilli dambe soo iktishaafay cilmiga casriga ah. Qur'aanku waa qaab luqadeed gaar ah oo aan cid kale samayn karin qaab dhismeedkiisa. Haddaba maanta waxaan soo qaadanayaa 5 ka mid ah xaqiiqooyinka mucjisada ka dhigaya Qur'aanka Kariimka. Biyuhu waxay laga maarmaan u yihiin wax walba oo noolo ah. Dhammaanteena waxaan ognahay in biyaha la'aantood aan la noolaan karin. Laakiin Qur'aanku wuxuu arrintaas sheegay 14 qarni ka hor. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Waxaan ka sameynay wax walba oo nool biyo. Miyaanan rumaynaynin? Aayadan waxaa lagu sheegay in biyaha ay yihiin asalka nolosha. Wax walba oo nool wuxuu ka samaysan yahay unugyo. Waxaan ognahay in unugyada inta badan ay ka samaysan yihiin biyaha. Tusaale, 80% cytoplasm oo ah aasaaska unuga noolaha uu ka samaysan yahay biyo. Sida aynu ku baranay buugaagta biology-ga, waxaana biology-ga ogaaday kadib soo saaridii aaladda microscope, halka saxaraha Carabta 14 qarni ka hor ay joogeen dad ku sheegi karay in nolosha oo dhan ay ka samaysan tahay biyo. Birta asalkeeda kama mid ahayn dabeecadda dhulka ama kama iman dhulka oo waxay ka timid hawada sare. Tani waxaa laga yaabaa inaad la yaabtid, laakiin waa mid run ah. Cilmi baarayaasha waxay soo heleen in balaayiin sano ka hor dhulka uu ku soo dhacay meteorites. Maadadan waxay xambaarsaneen birta, waxayna ka dhasheen xidiga fogfog oo qarax sameeyay. Qur'aanka ayaa ku sheegay aayadan soo socota. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Waxaan soo dejinay birta iyadoo shiddo ku dheehan tahay iyo faa'iidooyin ay insaanka u leedahay. Allah wuxuu isticmaalay ereyga waan soo dejinay, waxayna ku caddahay aayadda in birta aysan ahayn cunsur dhulka ka samaysmay, laakiin la soo dejiyay. Faa'iidada ay u leedahay ibni aadamka darteed. Xaqiiqdu waa in birta laga soo dejiyay hawada sare, laakiin cilmigii bilowga ahaa ee sayniska waxba kama ogeyn qarnigii 7. Cirka wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa difaaca dhulka. Cirka wuxuu dhulka ka difaacaa falaaraha halista ah ee ka imaada dhanka qoraxda. Haddii uusan cirku jiri lahayn, qoraxda waxay dili lahayd nolosha ka jirta dhulka oo dhan. Sidoo kale waxay u tahay sida buste oo kale oo ku duuban dhulka, ka oo ka difaacda qabowga barafka ah ee hawada sare, ka oo gaaraya 270 degree oo minus ah. Haddii qabowgan uu dhulka soo gaari lahaa, isla markii dhulka wuu barafoobi lahaa. Samadu waxay kaydisaa kulaylka qoraxda si ay u qandiciso dusha sare ee dhulka. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Waxaan cirka ka yeelnay saqaf wax xafida. Qur'aanku wuxuu tilmaamayaa in difaaca cirku ay tahay calaamad Ilaahay leeyahay. Difaaca cirka iyo waxa ku saabsan. Cilmi baaris la sameeyay qarnigii 20aad ayaa lagu ogaaday arrinkan. Qur'aanka wuxuu dareenkeena aad ugu soo jiidaa buuraha oo ah kuwo aad u muhiim ah. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Miyaanan dhulka gogol ka yeelin buurahana rukumo? Qur'aanku wuxuu tilmaamayaa in buuraha ay leeyihiin qoto dheer, iyadoo isticmaalaya ereyga rukumo si uu u qeexo. Buug loogu magac daray Earth
oo uu qoray geophysicist Frank Perez ayaa sharaxaya in buuraha ay yihiin sida tiirarka ayna ugu duugan tahay dhulka hoostiisa si qoto dheer. Buurta adduunka ugu dheer ee Everest oo dhererkeedu gaarayo 9 kiiloomitir oo dhulka ka kore ah, buurtaas salkeedu waxay hoos u dheer tahay 125 kiiloomitir. lama ogeyn ilaa la hormariyay plate tectonics bilowgii qarnigii 20aad. intii uu cilmiga hawada sare bilowga ahaa, balaarashada kownka waxaa lagu sheegay Qur'aanka. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. waxaan kownkan ku dhisnay awood, waana sii balaarinaynaa. xaqiiqda in kownka uu balaaranayo waxaa la soo daxqaaday qarnigii la soo dhaafay. fiisiyaankii weynaa ee Stephen Hawking ayaa buuggiisa A Brief History of Time ku qoray in kownka balaaranayo, waana mid ka mid ah iktishaafyadii ugu waaweynaa kacbankii fikradaha qarnigii 20aad, halka Qur'aanku uu sheegay kownka balaarashadiisa ka hor inta aan la soo saarin aaladda telescope. intaas ayaan jeclahay inaan ku ekeeyo mawduuceena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullah.